community-geena ama bulshadeena reer Minnesota waxay wajahayaan caqabado runtii kala duwan oo ku saabsan in macnaha weeraro ama ugaarsi ayaga ku gaar ah lagu wado isla markaana la doonayo in businessyadooda la burburiyo dhaqaalahooda la burburiyo laga dhigo mid la xiray ganacsigiisa mid isagiiba la xiray iyo mid gobolkii ka barakacay runtii door ay ku leeyihiin oo arrintan ay uga hadli karaan laakiin yaaba u tagayba yaa ka codsaday yaa xiriir la leh bulshadeena macnaha markii cilada yimaadaan kaliya u baahan yihiin inay macnaha ay soo xasuustaan dadkay doorteen runtii Axmedow Sankaloor oo dhan intaasoo business ku taala hal nin kaliya ila soo xiriiray oo arrintan ii keenay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada barnaamij gaar ah. Halka aad barnaamijkana ka daawanaysaan waa channelka Sankaloor Somali Radio iyo sidaas oo kale qaybtayada TV-ga. barnaamijkan xagga maqalka waxaa ka dhageysataan idaacadda KZYSLB ee magaalada Sankaloor oo aad ka dhageysan kartaan muujada 105.1 sidoo kalena waxaad ka daawan kartaan dhinaca website-ka oo ah kzyslbradio.com. haddaba ku soo dhawaada barnaamij kale oo ah barnaamijyada aan uga hadalno arrimaha bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Sankaloor gobolka Minnesota. barnaamijkan si gaar ah waxaan uga hadlaynaa arrimaha bulshada xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadeed ganacsiga iyo markaasi waxyaalaha la filayo sanadkan waliba dhanka siyaasadda ama doorashooyinka. barnaamijkayga caawa waxaa noogu marti ah Cumar oo loo yaqaano Cumar Boodi. Cumar wuxuu ka mid yahay dadka ganacsatada ah aqoon-yahanka ku dhaqan magaalada Sankaloor. aalaana waxaanu ka wareysanaa arrimaha Soomaalida ee magaalada Sankaloor iyo gobolka Minnesota. mar kale Cumar ku soo dhawow idaacadda ee KZYSLB. mar kale xaaladda guud ee magaalada Sankaloor bulshadeeda adigoo warbixin kooban naga siinaya ku soo dhawow. gaar ahaan Cumarow haddaan su-aasha aan ku soo dhawaado waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo. dhowaan waxaa saxaafadda gobolka ay hadal haysay qaar ka mid ah ganacsiyo ay leeyihiin dadka Soomaalida ee gobolka Minnesota oo hay-adaha dawladda sida hay-adda FBI-da ay tageen goobahoodii kuwaasoo iskugu jiray sida aanu maqalnay meela lagu xanaaneeyo caruurta oo loo yaqaano daycare iyo xarumaha autism-ka. ma aanan maqal meelahaasi meel ka mid ah oo magaalada Sankaloor ka mid ah, laakiin dareen nooceeya ayay Cumarow ay ku gelisay arrinta noocaas oo kale. ku soo dhawo barnaamijka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan dhawahay Axmed. community-geena ama bulshadeena reer Minnesota waxay wajahayaan caqabado runtii kala duwan oo ku saabsan in macnaha weeraro ama ugaarsi ayaga ku gaar ah lagu wado isla markaana la doonayo in businessyadooda la burburiyo dhaqaalahooda la burburiyo laga dhigo mid la xiray ganacsigiisa mid isagiiba la xiray iyo mid gobolkii ka barakacay in laga dhigo. maalmahani weekend hadda la soo dhaafay toddobaadkii hadda la soo dhaafay iyo toddobaadkii ka horreeyayna waxyaabihii ka dhacayay Twin City area ilaa iyo dhammaan metropolitan meela laysku yiraahdo siriyaasha ku xeeran Twin City-ga sida Minneapolis iyo St. Paul ilaa iyo Shakopee. waxyaabihii ka dhacayay waxay ahaayeen wax runtii aad u fool xun oo aan la oran karin waxaa lagaga hortegayaa fraud ee runtii la dhihi karo waa dagaal cad oo qaawan oo ganacsiyada Soomaalida lagu soo qaaday ee la doonayo in dhaqaalaheena lagu cuuriyaamiyo oo ay ku cuuriyaamiyaan hay'adaha federaalka taasoo isla markaasina saldhig u ah amaba ay ka socoto sidaanu dareensannahay
aqalka cad ee Maraykanka. arrimahan Soomaalida ee hadda gobolka Minnesota iyo wadankan Maraykanka dabcan waxaan u malaynayaa waa xaalad aad u adag ama xaalad qallafsan oo saameyn weyn ay ku sameynaysa bulshada Soomaalida ee gobolkan Minnesota iyo guud ahaan wadankan Maraykanka waliba hadda arrimuhu waxay aad ugu badan yihiin gobolkan Minnesota. adigu waxaa tahay nin siyaasadda u dhuun daloola Cumrow dadka siyaasiyiinta ah siday u arkaan arrimahan hadday yihiin kuwa mas'uuliyiin iyo kuwa markaas siyaasadda qayb ka ah maxaa sababay inaanan inta badan siyaasiyiintu arrimahaasi ayaan ka falcelin ama aan laga hadal Axmedow waxaan u dhigi karaa dhowr siyaabood siyaasiyiinta gobolka waxay isugu jiraan dhowr qaybood kuwa waa matalaada sirayga ama deegaanka aan annaga deganahay laga doorto meeshaan annaga deegaan noo ah iyo kuwa matala qaybta dhexe stateka oo ama stateka intiisa badan qaybta saddexaadna waa kuwa runtii loo diro federaalka. markii la yiraahdo deegaankan qaybaha hoose ee dadka laga doorto runtii dad waa isku dheelitiran qayba annaga naga soo horjeeda iyo qayba inagana taageersan qaybaha inaga inaga soo horjeeda kuraas ayay ku leeyihiin qaybaha inaga ma garanaysaa na taageersanna qayb kale ayay ku leeyihiin Axmedow waxaa jira bulshadeenna kuma baraarugsana waxyaabaha ay qaban karaan dadka loo doorta stateka ama gobolka sida aqalka sare iyo aqalka hoose gobolka. Cumar adoo raalli ah inta aanan u tagin dhinaca dadka iyagoo awoodda ay leeyihiin iyo waxay qabsan karaan ama ay ku dirqiyi karaan ku cadaadiyi karaan siyaasiyiinta inay qabtaan wax guud waxaad nala wadaagtaa siyaasiyiinta heer state ee gobolka ah haddii gaar ahaan kuwa Soomaalida iyo heer magaalaba maxaa arrimaha looga hadli waa tusaale ahaan falka hadda aan ka wareystay oo kale cid ka falcelisay haba yaraatee ama ka hadashay ma jirto marka door miyayna siyaasiyiintu ku lahayn arrimahan uga hadlaan runtii door ayay ku leeyihiin oo arrintan ay uga hadli karaan laakiin yaaba u tagayba yaa ka codsaday yaa xiriir la leh bulshadeenna macnaha markii cilada yimaadaan kaliya u baahan yihiin inay macnaha ay soo xasuustaan dadkay doorteen laakiin inta badan kama warhayaan ama macnaha ma oga in ay dadkani awood u leeyihiin in ma garanaysaa waxyaabahan ay joojin karaan sababtoo ah markii la yiraahdo dhinaca nooradka magaalada aan deganahay qofka laga doorto wuxuu matalaa 43600 dhinaca soodka marka loo fiiriyana shakhsiga laga doorto ee xildhibaanka wuxuu matalaa 44860 oo qof marka taas macnaheedu waxa waaye in ay labada qayboodba ilaa ay ugu yaraan 4 degmo dadka degan ay wada matalaan labada qof 4 degmo haddana hal qofood ayaa isku matala marka awood bay leeyihiin waan hadalnaa mar walbaano email la dirnaa waan codsanaa laakiin hal email iyo wadar email way kala duwan tahay Axmedow arrintani January 15keedan ka hadlay Facebook-aan soo fariistay aniga gaarkaan u leeyahay waxaan u sheegay bulshadeena in cilado nagu soo socdaan in weeraro nagu soo socdaan in business-yadeena ama ganacsigeena la soo weerari rabo anigoo runtii macluumaad hoose oo runtii aadna loogu kalsoonaan karo aan ku helay in macnaha dagaal ba'an oo kii ICE nagu soo qaaday iyo Donald Trump ka duwan iyadoo soo socotay ayaan bulshadeenna waxaan la wadaagay Axmedow in dagaalo kale oo ka duwan ay ku soo socdaan business-yadeena waxaan ku iri bulshadeenna is ilaaliya recordkiina hagaagsada file samaysta shaqaalaha idin shaqeeya iska hubiya ganacsigiina sanadihii la soo dhaafay sanadkan inta uu sameeyay iska hubiya feelal samaysta is hagaajiya ninkaanan hagaagsanayna waa loo imaanayaa ma garanaysaa waa la baarayaa dhib baana idinka soo gaari kara
because bini aadamka qalad lagama waayo axmedo waxaa jira dadka inta badan 750,000 lacag ka badan sameeya ama ma garanaysaa ii sheegeen 350,000 lacag ka badan canshuur xereeya far ayaa ku gudan waa la soo dabagelayaa waa la fiirinayaa waa la baarayaa hal qaladaa laga raadinayaa sidaan aniga aaminsanahayna soomaalideenna wax qalad ah mayna samayn marka laga reebo in aynan paycheck ee bixinayo oo system HR ama human resources mara oo account mara oo lacagta macnaha lagu bixiyo jeegaasi qofka ay siinayaan jeeg lamida intay print gareeyaan inaynan gelinin feelash ay hayaan si hadhow systemkooda aan loo qaadan ay warqado bundada intay gacanta ka saaraan qofka u yimid ay isagana mashquuliyaan oo ay sidaa ma garanaysaa ay yeelaan marka arrintan arrinaan ogeyn bay ahayd arrin nagu soo socotay ahayd waa ka falcelinay qayle iyo buuqan ka samaynay ma garanaysaa wax walbaan isku daynay marka laakiin hadda way timid way soo bilaabatay arrintan macnaha weerarkan qaawan ee bulshadeena lagu soo qaado oo Twin Cityga looga soo qaadayna waa arrin ugub ah oo bilow ah waxaa ku xigi doona in siriyaasha kale ay aadaan way cumar waxaad moodaa hadday noqoto ganacsiyada iyo hadday noqoto non-profit-yada ay maamulaan dadka Soomaalida Mareykanka inuu culays xoog la saarto dhawaan waxaa igu maqaalo ah in culeysyadaasi ay saameeyeen qaar ka mida ganacsatada magaaladeennan qaar ka mida ma hubo dhinacyada kale ee gobolka gaar ahaan dadka dukaamada leh loo yaqaano hilib xalaalka wararka aan maqlayo iyadoo waliba tafaasiil badan aanan ka haynin oo ay dadka ganacsatada ah si toos idaacadda nagala hadlin laakiin waxaanu maqlaynaa mishiinka ama qaabka ay yani ku ganacsanayeen oo ahaa inay isticmaalaan kaarka loo yaqaano EBT-ga EBT-ga dadka qaarna waa yaqaanaan waxaad la mid yahay kaarka kaliya qofka dawladda ka qaata food stamp-ka uu wax uga iibsan karo hilib xalaalka ama dukaamada waxaa cumar ugu maqaalo ah ilaa iyo 5 dukaan inta aan warka ku maqlay ma hubo aniga oo dhamaantood lama wada hadlin in uu saameeyay arrinkaasi oo laga joojiyay isticmaalitaankii kaarkaasi EBT-ga oo la yiri waa laga xirtay arrintaasina waxay noqonaysaa dhaawac weyn waad ogtahay ganacsiyada inta badan dadka ka adeegta waxay isticmaalaan EBT-ga marka arrinta maxaa xog ka haysaa sideeba ayadana sidaas oo kale ay u saameynaysaa ganacsiyadaas hadda la leeyahay waxaa laga goostay kaarkii EBT-ga oo dadka food stamp-ka hadda kama adeegan karaan waa mahadsantahay Axmed waxa waaye Soomaalida ganacsigeena waxaanu target gareynay marka hore bulshadeena soo galootiga kaliya wadankani waxaa ku nool 348 milyan ilaa 356 milyan bulshadeena marka hore waxaan dhihi lahaa isu tago isbahaysta oo ganacsigiina ha gaaro 368 kaliya ku ekaanina Soomaalida waxaa jira ganacsigana ku saabsan grocery-ga inta badan grocery badan ayaa suuqa soo gala dukaamanka adeega fudud oo tafaariiqda alaabaha laga qaato marka arrintaasi hadda hal kaliya ayaa isoo gaaray laakiin waxa la ii sheegay ilaa 5 iyo 6 in laga qaatay marka Axmedow laba ayaan u nisbeenayaa midda koobaad inay iyagu dhaxdooda xoogaa iska warhaynin oo wixii jira runtii iyaga aynan isogeyn kow midda labaadna waxaan leeyahay lacagaha ay marinayaan oo badan iyo dukaankii oo ma garanaysaa saa'id u yar iyo baraysyada wixii la gadayay iyo arrin noocaasa in ma garanaysaa laga soo gaaray mar aan runtii qolo aanan Soomaali ahayn balse soo galooti ah maalin aan caawinayay oo aan la xiriirinay USDA-da waxay yiraahdeen bishaas intaas ayaa laga gaday oo la mariyay bishaana intaas ayay ahayd marka
dooddeena waxay ku saabsaneed innagu ma customarkaanu macnaha aanu macnaha kontroolnaa ama aanu tirinaa mise hadba nasiibka intuu yahay inta noo timaada ayaan ma garanaysaa aan qabanaa marka waana kaga adkaanay oo waa loo soo daayay dadka innagoo kaashanaynay looyaro bulshadeenna ma axmedow isma laha dhaqaalaha soo gelayo ee waxaana ka soo gelayo walow ay ku badan yihiin ganacsiga oo 5 iyo 6 ilaa 7 ay ku leeyihiin haddana ma haystaan looyaro xiriirna lama laha dadka ay doorteen ay u dirsadeen St Paul ilaa ay federaalka wax xiriir ah lama laha marka intaas oo isbahaysta awgeed ayaa mar walba fududeynaysa in si degdeg ah loogu soo duulo oo ganacsigooda loo qaato axmed anigu waxaan ka mid ah dadka waddanka waqti hore yimid halkan iskuulka aad ay wax bartay bulshadeenna waxay u sahlan tahay in si fudud iyaga la isugu adeegsado oo iyaga la isku diro oo iyaga macnaha la iska hor keeno si macnaha ay u kala jeestaan oo aynan isu garab istaagin ama waxba aynan u wada qabsan isla markaana si fudud loo weeraro ganacsigooda loo burburiyo macnaha dhaqaalahooda dhulka loo dhigo isla markaana ay u sahlanaadaan in xilligii rabana dacwad lagu soo oogi karo xilligii rabana aan dacwad lagu soo oogi karin isla markaasina aynan xataa awoodin inay looyaro macno leh oo fiican inay hayargaraystaan dadka sidaa ku samaynayo waxa waaye waa dad abaabulan isla markaana hal qof oo Soomaali ah oo si toos ah u shaqaalaysan ma qabaan laakiin waxay qabaan dad badan oo Soomaali ah oo Allah subxaanahu wa ta'ala qarribay oo lacnadan oo aad dhibaato u haysata isla markaasina jaajuusnimo iyo waxyaabo xun ka doorbiday in ma garanaysaa bulshadeena ay dhibaateeyaan iyagoo isla markaa garab ku siinaya in ay ma garanaysaa dad mukhaadaraad ah oo cunsuliin ah oo bulshadeena nacab inay u adeegaan oo ay dhaqaalo macnaha kaga qaataan dhaqaalahaasoo xataa axmedow aanan gaaraynin saacaddii $20 xataa marka dad dulaysan oo dhibaataysan oo bulshadeenna ka mid ah ayaa arrintani dhibaatada qayb ka ah oo bulshadeenna farmuqaya dhibaateynaya intaanoo xumaana loo geysto haddii cadaadiska noocan oo kale ah uu soo fuulayo cumarow ganacsatada oo ahba halka keliya baan oran karnaa ee dhaqaalaha ka soo gelaya qaar ka mid ah bulshadeenna maxay taladaadu ay tahay axmedow taladaydu waa mid kooban waxaan ku noqonayaa ereygii ahaa marka hore waxaan ku noqonayaa anoo fursaddaani ka faa'iidaysanaya ereygii ahaa waxaa ka dambeeya dad kale in macnaha la xiro sidaan aniga ogahay ama aan axmedow markii bulshada la dacweeyo ama waxaan la shaqeeyaa ilaa 13 looyar inta kalena siyaasiyiinta badankooda ee gobolka Minnesota laga doorto xiriir fiican aan leenahay oo anigaaba macnaha qayb ka ah oo insuransiga ama caymiskooda ku jira marka waxaa jira bulshadeenna marka hore waraaqooyinka loo soo diro oo daydka loogu talagalay waxay la sugaan last minute-ka oo waqtiga ugu dambeeya ee la diraya la sugaan waxaa loo baahan yahay in markii riboodka laga rabo ay diraan 15 cisho iyo wixii ka badan inay diraan ka hor inay diraan ilaa bisha kowgeeda 9 cisho la siiyaa inta badan in macnaha ay ka jawaabaan marka maadaama 9 cisho la siiyo 30 cishaba inay macnaha wax waliba ay sameynayaan record keeping bookkeeping inay intay samaystaan qof hadday baygareeyaan lacag transaction hadday mariyaan bangiga hadday geeyaan ma garanaysaa inta ay soo iibiyaan maadaama meeshii lacag ay ka sameeyaan qof u fadhiya oo wixii ka shaqaynaya inay meesha geystaan oo aqoon leh mararka qaar waxaa arkaysaa buug baa meesha la hayaa qofaa wax ku qoraya magacaaga uu ku qoraya si fiican uma qor yaqaano arrintaasina caqabado waaye macnaha lacagta ay faa'iidayaan lacagta ka baxaysa inay yaraato tay faa'iidaya inay badiyaan ayay ka jecel yihiin marka risk assessment ama macnaha tabantaabo in khasaarahoodu yaraado marnaba ma galaan marka inta badanna waxa waaye dacwado iyaga dhexdooda isku soo ogaan
caqabado ka yimaada way jirtaa laakiin taa reportingka axmedow na way jirtaa iyadoo labada habacsanaan ay jiraanna raggii kale dee oo soomaalida sida tooska uga soo horjeeday oo naceebkeena macnaha maalin iyo dharaarba la hooyanayayna mar walba waxay u diyaarsan yihiin inay jaakadahooda intay soo xirtaan wixii dukumenti dhaqaale aan lahayn ay qaataan xataa hadday lacag arkaan cumar adigu dadka dabcan siyaasiyiinta la shaqeeya gaar ahaan xilliyada doorashooyinka ama la ololeeya ama aad qayb uga abaa ka tahay bulshadana waxaa tahay dadka codka uga raadiya mar walba siyaasiyiinta arrimahan soo food saaray qaar ka mida ganacsatada adiga ma kula soo xiriireen adigu ma la xiriirtay ma isku daydeen dadka stateka nagu matala in ay la kulmaan ganacsatada gaar ahaan soomaalida ah oo ay kala hadlaan arrimahan sida gaarka ah u soo food saaraya oo dabcan ay saamaynta ay ku samaynayso wax ma ku og tahay ama cid ma kula xiriirtay ama adigu ma kala xiriirtay oo arrimahan ma kala hadashay runtii axmedow sankaloor oo dhan intaasoo business ee ku taalla hal nin keliya ila soo xiriiray oo arrintani ii keenay oo igu yidhi cumarow markaad cod doonaysaan keliya miyaa ii imaanaysaan waxaan ku idhi ii imow cabashadaadaan kaa qoree marka wuxuu igu yidhi kuuma imaan karo ii sheegaan ku idhi waa ii sheegay caqabadihii xaqiiqda markaan kaaga warramo 1 saac iyo 10 daqiiqo keliya ayay igu qaadatay caqabadihii uu ii sheegay inaan wax ka qabto axmed aniga keliya dadka bulshada ma dhaho codkiina keena ma dhaho waa u qidmeeyaa xataa hadday washington d c wax uga xiran yihiin waa u raadiyaa hadday immigration noqoto hadday irs noqoto haddii ay siriga noqoto hadday stateka noqoto waa garab istaagaa wax alle waxa ay rabaan bulshadeenna waa la qabtaa ma hagrado ma ii kala socno dhammaantood mid bay ii yihiin adiga miyayn kula soo xiriiray mise adiga ma la xiriirtay ma isku dayda arrintan inaad siyaasiyiinta aad kala hadlaan bulshada soomaalida qodobkaan raba inaan ka hadlo way maxaase kula talin lahayd ama fikirkaaga ay tahay sababtoo tahay dabcan dee siyaasiyiintu inay dhegaystaan weeye marka laga reebo qaramada sababtoo tahay arrinta hadda soomaalida haysata waa arrin la xiriirta arrin siyaasi ah maadaama asagoo siyaasadda uu ku matalo inuu ka hadlo ama ay la hadlaan waa wax lagama maarmaana sooma nacam waa u yeeray axmedow hadda 2 wiig ka hor 3 wiig ka hor waxaan casuumay 60 qofoodaan casuume waxaan jeebkaygii ka bixiyey lacag 400 ilaa 500 dollar gaarayso oo aan cunno iyo wax walba ku soo iibiyey waxaan ku iri kaalaya shakhsigan looyarka ah siyaasigana ah doorashadoonka ah horeyna loo doortay oo matalaad hore lahaa ilaa ay heer federaal iyo heer statena ka soo shaqeeyey fadlan kaalaya baahidiina u sheega waxaa shirki yimid 4 nin iyo 16 gabdhoodaa timid 60 ayaana casuumay marka midda kale haddana waxaan casuumay inay yimaadaan 3 galabnimo si ay 4 u yimaadaan dad baa 5tii ii yimid iyadoo kulankii 15 daqiiqo ay ka dhiman tahay marka waxaan awoodi waayey axmedow anoo xataa martiqaadyo badan sameeyey anigoo qarash galay anigoo macnaha accountability ama isla xisaabtan siyaasiyiintii ugu yeeray inay haddana bulshadii aniga aan casuumaan u yeeray ee marnaba meelnaba imaan waayeen oo ay soo xaadiri waayeen taasoo aniga laftirkeyga igu noqotay wejigabax iyo inaan aniga mar walba dhagax tuurayo ama aan ma garanaysaa aan aniga dagaalka mid aniga dhinacayga ama kali aan ku ahay taa hadda kahor axmedow aan kaa dhexgalay hay-ad federaal aan eedeeyey aniga laftirkeyga federaalka waa la soo shaqeeyey waana u soo shaqeeyey waxaan ka mid ahaa US Attorney General Anti-Hate Crime Task Force kuwa la dhaho oo macnaha Attorney Generalka federaal ah la shaqeeya oo dadka midab kala sooca iyo naceebka la dagaalamo team ah ayaan qofka labaad ee gobolka Missouri ugu sareysa ahaa Midwest oo dhanna macnaha madax ka ahaa waxaa kaloo isoo maray Multicultural Advisory Committee member oo qofka saddexaad aan ahaa oo Midwest ugu power badnaa oo wax walba ka qaban kara anoo St. Louis Missouri degan isla markaana u qareemi karay
department of justice ayna ahayd community relation dadka lala shaqaynayay waxaa jirtay anigoo macnaha sidaa heerkaas macnaha gaarsan dadka qaar waxay dhahayeen ninkani maxaa ku dhacay miyuu waalan yahay horta waxaan dadkani maxaa daba dhigay tolo miyuu u shaqeeyaa jaajuus miya marka waxaa jira hay-ado federaal ah oo aan dacwad la galay oo dacwad aan ku soo oogay inay madaxdooda i ballansadeen oo ay la kulmeen oo ay ugu dhaheen dadka aad noo sheegayso oo annaga dhibka aan ku hayno dacwadda naga ah waa ayo markii aan u yeeray dadkii dacwadda ii keenayna ay dhaheen warniga kuwaa ma hortegi karno waa ka baqaynaa naga dhaaf cumaro adigu waxaa ka qaban karta ka qabo haddaa ka qaban weydaan hadhow in nala ugaarsadaan ka baqaynaa mar waliba aan dadka kiiskooda aan bannaanka soo dhigay axmedow lawyer baan u haysanaa oo free ah oo ama stateka siinaya ama federaalka xuquuqdeena u doodaya waddankan waa la hadlaa codkaaga waa la dhacsadaa cid macnaha dagaal kugu soo oogi karta ama si macno la'aana kuu dili kartaa haba yaraatee ma jirto xaqaaga waa ina u hadashaa waaya cumarow waxaa jirta arrin kale oo iyada naftigeeda aan maqlay oo aan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo tafaasiil badan kama hayo sababtoo tahay dadka ganacsiyada leh nalama ayan xiriirin laakiin waa war aan suuqa aan ka maqlay warkaasi wuxuu leeyahay in marka horena waan ku weydiiyey laakiin si gaar ugama hadli waa dadkan leh waxa loo yaqaano home careka ama dadkan maxaan ku rahdaa adult day careka iyo waxaa leh ayaan waxaanu maqlaynaa in qaarkood loo diray warqado la leeyahay soo caddeeya dabcan some accountability waxyaalo cadeyma ah la weydiinayo qaarkood 2 sano qaarkood ilaa 10 sano la weydiinayo waana og tahay waxyaalaha recordka mararka qaarkeed inay aad u adag tahay ilaa 10 sano ganacsigaasi sida uu wax u fakshan gareynayo dhaqaalihiisoo dhan in la caddeeyo ama waqti badan bay qaadataaba haddii uu qofkaasi xataa si fiican wixii u sameeyey marka arrimaha noocaas oo kale ana saameyntooda ayay yeelanayaan marka mar kale aan kugu soo celiyo bulshada Soomaalida dabcan cadaadis badan baa saaran waliba wuxuu saaran yahay dhinaca dhaqaalaha dhinaca dadka ka qaata dawladda adeega u sameeya serviceka iyo kuwa dabcan mararka qaarkood aan oran karo gadaal baan ka weydiinaya grants ka qaato oo hay'adaha non profitka marka mar kale Cumar haddaan kugu soo celiyo arrinta noocaas oo kale ah oo haddii qof investigation lagu furo isagu dabcan markiiba waxay tahay inuu siyaasiyiinta la hadlo dadka qaarkood lawyer bay raadsadaan arrimahooda way ka aamusaan laakiin waa maxay muhiimadda ay leedahay inay la xiriiraan siyaasiyiinta oo ay u sheegaan in si gaara loo beegsaday ama si gaara su'aalo dheeraad loo weydiinayo axmed lawyerka waa nin lacag ku shaqaynaya oo u baahan in uu codsado in daraasaad dheeraad ah la sameeyo awoodda lawyerka mar walba waa loo baahan yahay laakiin in awood lawyer la raadsado waxaa macnaha ka awood badan lawyerka waa shakhsi waxbarasho aqoon helay oo certificate-ka dowladda ay siisay laakiin waddankani qofka codka haysta ayaa awood leh ninka la doortay wuxuu ka awood badan yahay lawyerka halkii nin ee la doortay xataa hadduu city council yahay ama degmada hoose laga doortay waddanka Mareykanka wuxuu ka awood badan yahay 20 lawyer sababtoo ah kaliya hadduu hal warqad intuu qoro oo attorney generalka xafiiskiisa uu qoro yiraahdo hay'ad hebel waxay dagaal ba'an oo aan loo meel dayin ku wadan bulshadeydii sida awgeed dadkayga taxpayerka lacagta ay shaqeeyeen mardama in la sii uma baasin kartiin haddaanan ahaynna culayska bulshadeenna lagu haayo ha laga daayo hadduu dhaho dibaa looga degayaa sababtoo ah nimankan iskibrinaya ee markay xataa bulshadeenna la hadlaya iscuncunayaan ma kula hadlaya orodoo iga tagaa dhihi kartaa aniga warqad waaran ah miyaa wadataa oo ma ixiraysaa haddaynan taa ahayn lawyerkaygii bax la hadalaa dhihi kartaa lawyerna lama xiriiri kartid laguma xiri karo waraaqay kuu soo dirdirayaan waa kan marka warqad laguu soo diro waa in warqad waaran ah lagu soo daraa marka waxaan dhihi lahaa ganacsatada ku dhiban arrintaas
fadlan jimcaha ka hor intaan la gaarin ii imaada aan kulanno aan wada fariisanno sida arrintan caqabadahan aan u wajihi lahayn aan ka hadalno markay tani dhacdaan isu imaanno oo aan la shirno dadkii annaga aan doorannay waxaan leenahay state xildhibaano waxaan leenahay state senate waxaan leenahay congresska walow hadda ninka congresska matalo uusan ahayn nin caaqibo fiican laakiin haddana congress kalaan helaynaa oo stateka matalayo annaga matali kara waxaan helaynaa US senate oo annaga aan doorannay waxaanu helaynaa governor waxaanu helaynaa attorney generalkan warqad u diri karnaa waa isdifaaci karnaa intaa lawyer kaliya ku ordi lahayd dadkii aad dooratay u tag nala soo xiriir annagaa codka ku weydiina midda kale ninka aa adiga dooratay oo halkaa kuu matalo ogow lacagta in la doortay ku baxday waa ka badan tahay lacagta sanadka mushaarka uu qaato axmedow dadka qaar waxay moodaan dadka la doortay inay dhaqaalo badan ka helaan stateka $45,000 ayuu qaataa sanadkoo dhan qofka xildhibaan baarlamaan loo doortay kan sanadkan wuxuu qaataa $52,000 sanadkii waxaa laga yaabaa hooyo Soomaaliyeed oo hilibka ka shaqeysa ama qof ku qoran inay $107,000 sanadkii samaysa marka waxa waaye sida macnaha annaga aan dhaqaalo u haysano macnaha socodkeena uma eka iyo habdhaqankeena waxyaabo far badan aan naga qaldane bal aan isu imaano isi saxno si aan u awoodi karno inaanu annaga isdifaacno dadyo annaga naga yaraa waddankan joogaan runtii mana lagu degdego annaga waxaan kugu soo degdegaya waxa weeye annaga isdulmino annagoo allaahina abuuray dulmino innagoo been sheegna iyo innagoo aanan isku xirnaansho lahayn kale markaa cumaro aan eegno hay-adahan qaarkood ama su-aalaha la weydiinayo ama waxaan oo dhan ama dhaqaale ayaa dadka ka soo gala ama waa shaqo tusaalahaan waxaa ognahay kambaniyada kuwa caafimaadka ka shaqeeya oo kale oo iyagu naftigooda howlahan ku jira gaar ahaan kuwa transportation ka shaqeeya aan iraahda inay dad badan u shaqeeyaan oo ay lacag ka sameeyaan oo ay darawala yihiin waxaa ognahay sidoo kale waxaa la yidhahda BCA-ga inay dad badan sidaasoo kale ay shaqo ahaan ay u tahay waxaa ognahay daycare-ka marka laga reebo in caruur lagu hayo inay tahay meel ay dad badan ay ka shaqeeyaan sidoo kale waxaan ognahay marka barnaamijyadan oo dhan waa barnaamijyo dad badan ay ka shaqeeyaan cumrow ma isleedahay dhibaato weyn oo dhaqaale iyo shaqo ayaa soo food saari doonta bulshada ku dhaqan gobolka Minnesota maadaama adeegyadii ay bixin jireen qaarkood laga yaabo inay xirmaan halkaasna qofkii hadduu contract uu ku waayo intaasoo qof ay shaqo la'aan ku dhici karto marka ma isleedahay bulshadeenno awalba dhibaato xagga shaqo la'aan haysay waxaa ku soo socota dhibaato xoog leh oo ah xagga shaqo la'aanta maadaama qaarkood ay su'aalo la weydiinayo hay-adihii ay la shaqayn jireen oo stateka uu qaban jiray contractyada nacam axmedow haa jawaabta oo fudud waa haa waana macnaynayaa sidaan ognahayba waxaa laga yaabaa daycareka inay ka shaqaynayso 30 ilaa 40 qof group homeka inay ka shaqaynayaan 25 qof ma garanaysaa BCA-ga ama waxyaabaha wax ku saabsan waxaa laga yaabaa in 50 qof ay ka shaqaynayaan transportationka waxaa laga yaabaa inay 30 ilaa 50 iskale inay ka shaqaynayaan bayjeega soo mara hay-adda keliya inaad intaad lacag ka urursato africa intaad ku aado gabdho iyo dad inaad xaasas badan ku soo guursato ama aad ku soo baashaasho ama africa u soo faanto ama daarado waaweyn aad ka soo dhisto waxaa kaaga fiican adigoo lawyer joogto ahana ka qabsada adigoo donation ka siiya qofka ku matala kugu matala houseka ama xildhibaannimada qofka kugu matala adoo dhaqaale ka siiya qofka congresska kugu matala $100 u qori kartaa keliya hadhow marka cilado timaado uu kusoo garab istaagayaa taasi marnaba ha moogaanina haddii aadan adiga investigaraysan lawyer iyo xildhibaan iyo senate iyo haddaa adiga investigaraysan cidna hadhow kulama doodayso waxaa kaloo dheeri axmedow 6 bilood ee nagu soo socota ICE-na soo weeraraysay ee dhaqaalihii loo diiday
oo macnaha laga qaaday Minnesota oo caqabadahooda iyo dhibaatooyinkooda hoos u dhacay waxaa bedelay FBI. FBI-dana ICE waa ka daran yihiin markii arrimaha Soomaalida la yiraahdo. FBI-da markii la yiraahdo arrimaha Soomaalida waa ka daran yihiin. Sharciyan waxaana difaacaya federal lowga ayaana difaacaya. Laakiin markii la isbarbar dhigo ICE dad la soo diray ahay, laakiin FBI-da waa dad nala jooga sharci wata wax baara, laakiin wax baaritaankooda waa loola jiraa. waxay baarayaan waa loola jiraa. macnaha shaqo abuur ay samaystaan, isla markaasna bulshadeenna waxay ku wadaan dagaal labalaab ah ama 3 jibaar ah oo ay ku curiyaaminayaan dhaqaalaheenna. marka waxa waaye haddaan annaga isdhiibno oo madaxa aan hoorsano, madaxaana laka garaacayaa. haddii laakiin aan soo baxno oo aan dhahno shakhsi aniga ila midaa tahay, taxpayer aan ahay, taxkaygaa lagu siiyaa, wax dembiya maana gelin, businesskaygi waxaygiyaa ugaarsanaysaa, lacagtaydiyaa qaadanaysaa, waaranka ay haysato midaa qalad ku soo qaadato waaye, waadna igu xadgudubta in la dhaho waaye. midda kalena dadyowgan intay idin imaadaan sida fudud aad ku hayargaraysanaysaan ama ganacsigiina aad uga sheekaynaysaan ama aad u faanaysaan, please joojiya. dadku nadiif ma wada ahan, gacmo daahira wax daahiriyaa la yidhi. dadkan aad sirtiin uga warramaysaan oo aad leedihiin 120 kun aan sameeyey, 110 kun aan sameeyey, waa dad slave lagu haysto $100 lagu macnaha la siiyo oo dadka inay soo jaajuusaan loo soo dirsaday. fadlan sirtiina ha ka hadlina, fadlan is ilaaliya, fadlan cidna waxba ha u sheeganina, fadlan looyaro qabsada. kaliya hadda Twin Sirga kuma ekaanayso. dagaalka wuxuu soo gaari doonaa Centralka, annagoona soo gaari doonaa. waxay dhihi doonaan waa baaraynaa, waxay dhihi doonaan sadaana ku samaynaynaa. laakiin dhagax tuurku waa badan doonaa. kolley Cumar mar hore isqadimay, is ilaaliya oo hantidiina iyo jiritaankiina iyo businesskiina iyo rabitaankiina ogaada. dadkan Soomaalida idin soo hoosgalayaanoo 24 saaxiibada idin ka dhiganayaana Soomaali midabkay ka yihiin, qalbiga kama ahan. fadlan sirtiina dadka uga sheekeynina, is ilaaliya, ganacsigiina ilaashada. isla markaana waan idin garab taaganahay mar walba, waan idin doodaynaa. dadka doorteenaan idinku xiraynaa. dhaqaalo urursada, looyaro qabsada, isbahaysi sameeya, isu imaada, kala qobqobnaanshaha iyo dhibaatadan iska daaya. waxaan ku qasbannahay annaga markaana community-ga nala soo waco ama wax naloo soo dhigo inaan kii qaldanna dhahno waa qaldan tahay oo aan qaladkiisa ka qabanno, kii saxanna aan dhahno wani waa saxan tahay, si fiican u shaqayso. laakiin taas macnaheedu ma ahan inaan ka hor imaan karno dowladdii federaalka ama aan u diidi karno markii shaarkeenna ee nagu qabsadaan wax ka sheegaan inaan bandhigno transparent aan dhahno waa kana waxeenna waa sax, waa kana waxaan qaldan ma rabno. haddaan idiin sheegayaa qof kasta oo dowladda Maraykanka loo doortay oo madax ka ah ama la doortay ama bulshadeenna waxtar u leh waa la shaqaynaynaa, waa garab istaagaynaa, waa caawinaynaa. qof kasta oo bulshadeenna ka soo horjeedana waxaan rabaa inaan idiin sheego waa ka soo horjeesanaynaa. waxaana leenahay weerar cad oo qaawanaa nagu soo qaadeen, dib nooga istaaga. aad baa u mahadsantihiin, waa idin salaamayaa dhammaan. waayahay barnaamijkan halkaa aad hadda ka dhegaysanaysaan amaba aad ka daawanaysaan waa idaacadda KZY SLB ee laga dhegaysto muujada 105 magaalada St Cloud. marka aad joogtid sidaasoo kalena dhinaca website-ka aad ka dhegaysan kartid. inta aan barnaamijka ku xiga ku kulmi doono, waa anigu Axmed Laariya iyo saaxiibkay Cumar oo caawi studio-ga nagu soo booqday. inta aan ku kulmi doono barnaamij ku xiga, sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.